ciidamada oo tababarka u furmay ayaa ah ururka 60aad oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si gaar ahna u ilaaliya xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho 118 ka mid ah ciidamadaasi ayuu tababarka si gaar ah ugu qabsoomay waxaana carbiska ciidamadaasi u furay wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan difaaca dalka kana faa'iideystaan tababarka runtii aadan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo dufcaddii afaraad ee ururka 60aad ee tababarka maanta uu u furmayo waxaan aad ugu faraxsanahay sida aad u soo diyaar garowdeen waxaan aaminsanahay ururka 60aad inuu ka duwan yahay ururada kale waxaad kaga duwantiin mas'uuliyadda idin saaran mas'uuliyad ka culus baa idin saaran ciidanka intiisa kale waxaan aaminsanahay inaad tihiin kuwa tusaale u noqda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed runtii waxaan aaminsanahay tababarka dad badan waxay yiraahdaan maxaa la yiraahdaa tababarka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka caafimaadkiisa laftiisa soo dhisaya marka waxaan fiiriyay schedule-ka la idin dejiyay ee tababarka subaxii waxaa ugu horeeya BT inaad 5 aroornimo soo kacdaan kadibna meeshaasi uu ka bilowdo dishibliinkii aad barataan salaamihii aad barataan VIP protection aad barataan diintii aad barataan mid ka mid ah askarta uu tababarka u furmay oo TV-ga Universal la hadlay ayaa tixgabi ah u tiriyay ciidamada oo ku guubaabinayay waxaana uu wacd ku maray in uu ka qayb qaadanayo difaaca dalka waxaan maskax la isu geystiyo midnimadu way macaan tahay mushkiladii dhabkii kula darsaa lagaga maataayay mas'uuliin la soo moqolo talada loo miiro hawsha muftaxa shacbiga uga noqdeen wixii masiibayo midigta u gasheen xaqi maradu saarnay mooryaantii baa quusatay maalmada cunayaashii dadkii midnimada goosan jiray midifta loo qaad mashruuc iyo ololo wuxuu wado maanku noo degiyo magac iyo qabiil laga tagiyo la isma maqashin Cabdicasiis Ibrahim Ahmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho